qodobada ku daawan doontaan waxa ugu dooron xafladda ay al-shabaab u qabanaysay ciidamo tababar dhameystay oo la weeraray 10 dhacdo oo aan la mahdin oo diiwaanka u galay dowladda Farmaajo odayaasha beelaha Muqdisho shaaciyay toonay ka qabaan qarxi gobolka imaaraadka oo sheegay in dowladda Qatar ay taageerto kooxaha lagu yeeray argagixisada musafani oo shaaciyay arrin oo Farmaajo kula taliyay sidii dowladdiisa u shaqayn lahayd qeyrro ciidamada ahlu sunna u sheegay inay Farmaajo ka amar qaataan warka dibadda daawadayaal waxaa ka mid ah ciidamada Suudaan oo awood u adeegsaday kala ceyrinta dibadbaxyaal iskugu soo baxay magaalada caasimadda Khartoum waa subax Arbacada taariikhda ay ku beegan tahay 31 bisha 7 sanadka 2019 daawadayaal intii aad maqashan oo faahfaahsan ku soo dhawaada hagaag xafladda ay al-shabaab u qabanaysay ciidamo tababar dhameystay oo la weeraray saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa shaaciyay in diyaarado dagaal ay laba duqeyn ka geysteen magaalada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya habeennimadii Isniinta saraakiisha oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya iyo Jubbaland ayaa tilmaamay in duqeynta koowaad lala beegsaday munaasabad ay al-shabaab tababar ugu soo xirisay dagaalamayaal cusub xubnahaasi oo tiradooda aan la cayimin ayaa waxaa la sheegay in loo qoray guutada xoogaga gacan saarka la leh al-qaacidada u qaabilsan waddanka Kenya ee loo yaqaan Jeesul Ayman warbixinta ayaa intaasi ku daraysa in weerarka labaad ee dhanka cirka ah uu ka badbaaday horjooga sare oo ka tirsan al-shabaab kaasi oo aan weli la xaqiijin magaciisa iyo jagada sare uu hayay ilaa iyo haatan lama oga qasaaraha dhabta ah ee howlgalladaasi ka soo gaaray al-shabaab walo la tibaaxayo inay jirto dhimasho badan gobolka Jubbada Hoose oo hoostaga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa wuxuu ka mid yahay deegaanada ay ku xoogan tahay al-shabaab isla markaana ay ku tababarto xubnaha ka barbar dagaalama duqeynta ayaa ku soo beegmaysa iyadoo jimcihii aan soo dhaafnay toddobaadkii tagay kulan ku yeesheen tuulada Buulafuulay ee gobolka Baay hogaamiyaasha al-shabaab iyagoo ka wada arrinsaday qodobo dhowr ah xog la helay ayaa tilmaamaysa in kulankooda ay diiradda ku saareen isbedel ay ku sameynayaan deegaanada ay maamulaan iyo waliba xeelad cusub oo ay qorsheenayaan inay ku soo kordhiyaan howlgallada ay fuliyaan dagaalamayaashooda Mareykanka iyo Kenya ayaa diyaaradahooda inta badan duqeymo ka fuliya deegaanada Jubbooyinka waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa 10 dhacdo oo aan la wadaagin daawadayaal dowladda hadda jirta ee la magac baxday nabad iyo nolol dhacdooyinkan ayaa iskugu jira kuwa ku yimid gaabis dowladda dhankeeda ah kuwa ay gacanteeda ku geysatay iyo marxalada ay ka qaadatay go'aan aan la jeclaysan inta badan dhacdooyinkan ayaa ku yimid habacsanaan dhanka dowladda ah oo jaaniska ugu badan siisay kooxda dagaalka kula jirta oo ay ka mid yihiin al-shabaab iyo Daacish ma ku koobna 10 oo kaliya dhacdooyinkan aan horay loo arag ee dhacay inta talada waddanka hayay madaxweyne Farmaajo balse intan ayaan u aragnay inay yihiin kuwa ugu muhiimsan madaxda ugu sarreeya al-shabaab ayaa hal meel ku kulmay waxayna ka hadleen arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo isbedel ay wadaan inay ku sameeyaan wilaayadooda maamul goboleedyada sida ay sheegeen waana markii ugu horeysay ee sidaas dhacdo 2 qarax aan wali la xaqiijin qaabka u dhacay oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen mas'uuliyiin xilal muhiim ah ka haya gobolka Banaadir oo ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa ka dhacay hoolka shirarka xarunta maamulka gobolka Banaadir al-shabaab ayaa iskugu yeeray ergadii soo dooratay xildhibaanada dowladda federaalka kuna soo bandhigtay meel fagaaraha iyagoo dharka ka bedelay waxayna sheegeen in tawxiidka u qabteen 4 qaraxii ugu saameynta badnaa Soomaaliya isla markaana ugu qasaaraha badnaa ayaa ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho waxaana ku nafuway in ka badan 1,000 qof dowladda Soomaaliya ayaa ka taqallustay ciidamadii hay'adda sirdoonka qaranka NISA waxayna ku dartay booliska Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa u gacan gelisay muwaadin Soomaali ah dowladda Itoobiya oo cadaawad soo jireen ah kala dhaxaysa Soomaaliya waxayna sheegtay xukuumadda inuu qalbi dhagax yahay argagixiso ciidamada dowladda ayaa weerar qaawan ku qaaday habeen saqdhaxa ah guriga siyaasi hogaamiye u ah
xisbi ka mid ah saxaabta dalka oo ka fikir duwan dowladda iyadoo ku dilay askar dowladda ka tirsan oo ilaalinaya guriga siyaasigaas isagii oo dhaawacana xabsiga u taxaabay ilaa markii dambe maxkamad uu ka soo muuqdo wax dembi ahna lagu waayo. 8 dowladda Soomaaliya ayaa u aqoonsatay jabhadda ONALIF inay tahay argagixiso dhibaato ku haysa dowladda Itoobiya walow ugu dambeynay heshiiyeen dowladda Itoobiya iyo jabhadda ONALIF una aqoonsadeen garab ka mid ah mucaaradka. waa markii ugu horeysay oo la arko kooxa inta dila qof ka duubaya muuqaal iyagoo dilaya meeshana ka baxsado iyagoo aan la qaban kadibna muuqaalka ku baahiya baraha bulshada inkastoo laamaha ammaanka sheegeen in ay qaar ka mid ah dadkaasi qabteen inkastoo aan warbaahinta loo soo bandhigin. qodobkeena ugu dambeeya 10 wasiirre ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo shaqadooda ku jira ayaa idaacadaha ka maqlay in xilka laga qaaday waxayna ku dhacday wasiirro ay ka mid yihiin Jowxa iyo Yuusuf Garaad. odayaasha beelaha Muqdisho ayaa war ka soo saaray qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir waxayna shaaca ka qaadeen inay jiraan tuhunno iyo su'aalo oo u baahan in ay dowladda ka jawaabto. waxgaradkan oo shir jiraad u qabtay wariyaasha ayaa sheegay in dowladda looga fadhiyay inay si degdeg ah ku soo bandhigto baaritaanka dhacdadaasi. waxa ay tilmaameen in loo baahan yahay in la cadeeyo sida uu ku dhacay weerarkaasi cidda fududeysay intaba. odayaasha waxay xuseen in xarunta dowladda hoose ay ahayd goob amnigeeda si weyn loo sugo isla markaana aysan suuragal ahayn inuu si fudud qarax lagu geliyo. sidoo kale waxay tilmaameen in arrin lala yaabo ay tahay in weli caasimadda oo kale xiran la beegsanaya xarumihii dowladda ugu muhiimsanaa. weeraraduna ay sii socdaan iyadoo ciidamo badan ay ku sugan yihiin magaalada howlgalladuna ay yihiin kuwa joogto ah. wasiir dowlaha dowladda Imaaraadka Carabta Anwar Qarqaash ayaa boggiisa Twitter-ka ku qoray in aan la dafiri karin in dowladda Qatar ay xiriir dhow la leedahay ururada hubeysan ee Soomaaliya ka dagaalama sida Shabaab iyo Daacish. wasiirkan waxa uu sheegay in xogtii uu dhawaan baahiyay wargeyska New York Times ay cadeen u tahay sida ay xukuumadda Dooxa u taageerto ururada argagixisada ah ee Shabaab iyo Daacish ka mid yihiin. waa wax cad in Qatar ay xiriir la leedahay ururada xagjirka ah iyo kuwa argagixisada. xogtii wargeyska New York Times waxay cadeen u tahay in Shabaab iyo Daacish ay Qatar taageero ka helaan. codkii laga duubayna safiirka Qatar Muqdisho u fadhiya waa mid halistiisa leh oo aan la dafiri karin ayuu yiri wasiir dowlaha arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta. waxa uu nasiib darro ku tilmaamay wasiir dowlaha in dowladda Qatar ay ururo argagixiso u adeegsatay qalqalgelinta danaha dowladaha xiriirka u jaray ka leeyihiin Soomaaliya. wargeyska New York Times ee Mareykanka ka soo baxa ayaa dhawaan qoray xog ku saabsan ku lug lahaanshiyaha dowladda Qatar weerar ka dhacay Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bari Puntland oo mas'uuliyadoodu sheegteen ururada Shabaab iyo Daacish. eedahaas dowladaha Qatar iyo Soomaaliyaba waa ay beeniyeen. madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa goob fagaaraha ka sheegay hadal gaar ah oo dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Master Museveni ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya u sheegay in dalkiisa uu la burbursan yahay sharci la'aanta. waxaan u sheegay madaxweynaha Soomaaliya inuusan yeelan karin dowlad shaqaynaysa haddii xeerka dalka aysan diyaarsaneen. waxaan u sheegay madaxweynaha Soomaaliya inuusan yeelan karin dowlad shaqaynaysa haddii xeerarka dalka aysan diyaarsanin ayuu yiri madaxweyne Museveni oo ka hadlayay kulan isaga iyo Farmaajo si gaar ah u dhexmaray. waxay uga wada hadleen wuxuu intaasi ku daray inuu madaxweynaha Soomaaliya kula taliyay inuu marka hore dhiso sharciyada dalka kadibna ay muwaadiniinta bilaabaan bixinta canshuurta iyadoo la dhaqan gelinayo xeerarka dalka markaas kadibna ay imaan karto dowlad shaqaysa oo bixisa mushaaraadka ciidankeeda. Museveni ayaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya kula taliyay inuu yareeyo mushaarka ciidamada laakiin uu adkeeyo xeerarka dalka ciidan xoog lana dhisto sida uu hadalka u dhigay. markaana Galgaduud رئيس الوزراء حكومة الصومالية حسن علي قير ayaa kormeer ugu tagay ciidamada xooga dalka ee ka tirsan guutada 15aad ee taliska qaybta 12aad oo ka kooban ciidamadii dhawaan la qarameeyay ee ahlu sunna iyo ciidamadii qaybta 12aad ee magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo hadda diyaar u ah howlgal ka dhan ah shabaab. Raiisul Xasan Cali Qeyro ciidamada ugu tagay kormeer dhiirigelin ah iyo dardaaran ah iyo ku buuriyay inay si wada jir ah ugu shaqeeyaan midnimada qaranimada sugidda amniga iyo howlgalada al-shabaab looga xoreynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin dowlad goboleedka Galmudug.
ayaa si gaar ah ula dardaarmay taliyaha guutada 15aad jenaraal Mascuud Maxamed Warsame iyo taliyaha taliska qaybta 12aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jenaraal Yuusuf Kanti isagoo ku adkeeyay inay gutaan mas'uuliyadda ka saaran difaaca dhiigga iyo hantida ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada ay u xilsaaran yihiin. Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in muhiimad weyn ay dowladdu u leedahay tayeynta ciidamada iyo qalabintooda ay ballan qaadayso in si dhaqsi ah loo dhisayo xarunta 12aad oo ku taala Dhuusamareeb burbur xoogna uu ka soo gaaray dagaaladii ka dhacay dalka Soomaaliya. Markaana warkii dibadda daawadayaal ciidamada Suudaan ayaa awood u adeegsaday kala ciirinta dibadbaxayaal iskugu soo baxay magaalada caasimadda ah ee Khartoum. Ciidamada ammaanka dalka Suudaan ayaa lagu eedeeyay mar kale inay awood u adeegsadeen kala ciirinta dad iskugu soo baxay wadooyinka caasimadda dalkaas ee Khartoum. Wararku waxay sheegayaan in ciidamada amniga ay rasaas caagag ku samaysan iyo sunta dadka indhahooda ilmada ka keentay u adeegsadeen kala ciirinta dad banaanbaxyo dhigay. Inta la xaqiijiyay shan ruux ayaa ku geeriyootay intii rabshadu socotay. Muuqaalo baraha bulshada la soo dhigay ayaa waxaa ka muuqanayay ciidamada oo jir dilaya dibadbaxayaasha oo wadooyinka dhoobnaa. Dibadbaxayaasha ayaa weli ka biyadiisan siyaasadda xukuumad wadaagga ah ee hadda dalka Suudaan ka jirta.